السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيفي عن هورتا ما ليسو مغلا وحانو قرتين ليس مغلي ما شاء الله. دادوينها شرفت له كسو قيب قلي حفلة بلارن لغو ماموسيو قوشي اي قارتي خاتمة ستيت اوف سوماليا سودوية ما شاء الله ده ما شاء الله ما شاء الله. آد يا آد حفلة كندق يدم عاو حوية قول يقوب النمو وهالبيجا أما هالكودجا حفلة عاو عين السجنمي وحن مركو هورا إذا كم هالعلنا سيد الشرفت له وناق له ولالتين ماذا له الصومال ماذا له أدوك السوق يبقى شين ونصو عمرتين قابتن وتكون مهد سنتين غير بوستن وواحد لقوا يقاني بقولك يبقول آدي آد بدقوا مهد سنتين مش حرد يعني لا بخيلين مش حرد يسعبك وهبين فرحت وإن آد كرلو قد واقع إن شاء الله. حفلة إنه السجن معاوة طبعا واد أكتهين واد نكدرك سنتين وسودوين يا دبالدق يا فرحت لغو maamuusayo guulihii isdabajooga ahaa ee ay gaadhay maamulka cusub ee curdanka ah ee ku soo biiray maamuladii ka jiray Soomaaliya. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaa xafladda qorshaheeda ugu weyn iyo halbeegeeduna waa ka waxa caawa marka insha Allah aan sameynaynaa waqti badan ma haysano nasiib daro laakiin intii aan ka gaadhno barnaamijku wuxuu isugu jiri doonaa laba qodob oo muhiim ah. qodobka koowaad sida halkan idinka muuqda waxa fadhiya rag odayaal ah oo cirdigooda iyo sharaftooda iyo maamuuskooda iyo karaamadooda ku fadhiya oo local iyo isugu jira dad aan local ahayn oo meelo kale banooga yimi badankood saan jeclahay. waxa kale oo halkan aan fadhiyaan rabaa inaan gaar u maamuuso Cabdiraxmaan Caydiid oo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo sportska maamul dowladda Puntland aan iraahdo daayamaan dowlad baa leeyahay. waxa kale oo sidoo kale fadhiya rag odayaasha ah ku taqaaneen magaalada Boston. insha Allah marka panelku si waqtigu soo noogu dheeraan aad baan u soo koobkoobeyna qofkii 2 daqiiqo 3 daqiiqo inuu ka bato ma aha. marka qodobkan hadalka iyo ma garanaysaa farxadda iyo hambalyeynta iyo soo dhaweynta khaatimo ay dhamaato of course dumarku way soo hari doonaan insha Allah iyaguna hawlahoodii iyo ciyaartoodii iyo dabaaldegoodii iyo halkaas ay ka sii wadan doonaan. marka waan soo dhaweynayaa insha Allah waxaan rabaa inaan hadda mikrofoonka ku soo dhaweeyo oo uu noo furo aayadaha quraanka kariimka aan inoogu akhriyo wixii wacyi ahna inoo daba dhigo Sheekh Cabdullaahi Faarax Canshuur soo dhaw Sheekh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا وحو إنقو بري وحيالا بدن أو نفت بني آدم كي يباهنتها سيدي يقول رقم لهاد أدون كان الله سبحانه وتعالى أرمها عبادة أو كلية نقوم أمرنا حتى سيدي أن أدقم لهن أيها الله سبحانه وتعالى ونقبر الدين تيس إلهي آية قرآن وحكيري يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. wuxuu yiri kuwiinan iimaanka laga helay ay sheeganaya inay muslimiin yihiin oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u hoggaansamay. Ilaahay wuxuu yiri waxaad cuntaan waxyaalaha wanaagsan dabadeeto Ilaahay wuxuu raaciyay arinta aynu caawa halkan u fadhino oo mahadcelinta oo Allah subxaanahu wa ta'ala ay nagu waajibtahay inaanu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u mahad celino. Ilaahay wuxuu yiri washkuru lillahi Ilaahay u mahad celiya maxaa yeelay wax oo gaartid oo liibaan ah
gacantaada kuma imaanine waa mid Allah subxaanahu wa tacaala uu kuu gartay uu kuu manaystay marka waxaa loo baahan yahay manadaasi ilaahay markuu ku siiyo ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay u mahad celi awooddaada iyo kasabkaaga kuma keensanine dadaal baad samaysay laakiin natiijada waxaa ku siiyey ilaah waxaa la yiraahdaa aayadaha quraanka ilaahay uu nagu bariyo in ilaahay loo mahad celiyo oo dadka loo mahad celiyo waxay gaarayaan 38 aayadood taas oo ku tusaysa inay tahay tarbiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina barayo markii waxa lagu siiyo aqoon lagu siiyo degree aad heshid qofku bani aadamka waxa loo baahan yahay inuu ogaado mid adiga oo kala ah ayaa inta la siinin oo aan helin laakiin adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu kuu gartay waxa loo baahan yahay inaad dib u fiiriso aad tiraahdo waa kugu mahad celi ilaahay ilaahay quraan wuxuu ku yiri la in shakartum la azidannakum haddaad igu mahadisaan waa idin ziyaadinaya waxa aad maanta aad helaysid maanta qof baan helin qof baan haysanin waxa ugu yar maanta aynu oran karno ma aragtay waa shay yar oran karno waxa weeyaan neefsiga neefsanaysid oxygen-ka aad qaadanaysid carbohydrate ka soo saaraysid waa shay yar laakiin waxa weeye qof baan haysanin maanta oo intaas oo machine iyo maarta laga daabwado marka waxa weeyaan inaad ilaahay u agtaad aad tiraahdo ilaahay aniga hadda u siiyay waxa waajibkayga saaran waxa weeyaan inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celiyaa taas waxa weeye waa mahad ilaahay subxaanahu wa tacaala loo celinayo markii wax uu ku siiyo dad baa jira leeyahay markii wax la siiyo waxay yiraahdaan waxaan ku kasbaday garaadkayga iyo aqoontayda iyo quwadeydii iyo ciidankii aan haystay iyo maya waxa weeyaan imisaal yiri kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidnillah imisaa waxa la yiri ciidan waaweyn oo dabaabad intaas wato ay burburiyeen ay baabi'iyeen qolo yar ha macnaheedu waxa weyn ilaahay baa libinta keena ilaahay baa guusha keena marka waxa loo baahan yahay in ilaahay dib loogu noqdo yiraahdo ilaahay waan kugu mahadinay ee xooggeeni kuma keenin taas waa tan xagga ilaahay weeyaan mid labaadna waxa weeyaan in qofkii walaalka ee wax maartay kula garab istaagayna inaan mahadda laga baabi'inin in mahaddiisi loo celiyaa xadiis nabiga wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii aan mahadinin qofkii wax u sameeyay qofkaasi ilaahay kuma mahadinin waxa loo baahan yahay qofka walaalka ah kelmad yar oo wanaag ah kugu ziyaadiyay oo kugu taray inaan mahaddan ka iloobin Soomaali ahaan anaga waxa weeyaan aad bay waxay nagu adag tahay inaan qof ka dhahno thank you aad bay nagu adag tahay waxaad u maleysaaba inaan qofka aan ku leenahay ay tahay wax waajib ah laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu na barayaa in mahadda aan had iyo jeer qofkii noo istaaga inaan mahaddaasi aan kala leexanin kelmad yar ficil yar awood badan qofkii ku geesta waxa loo baahan yahay mahaddaas inaan marna aan laga iloobin ayad kale qoran ilaahay wuxuu ku leeyahay wa qalilun min ibadiy ash-shukur aad baa waxa u yar kuwa mahad celiya bal eeg ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha noo taabanay in badan oo dadka bani aadinka ah mahadda ma celiyaan marka waxa loo baahan yahay waxaan maanta aan u joogna meeshan inaan ilaahay u mahad celino labo dadkii maanta taakuleentaasi wax ka geystay ilaa waxa weeyaan reer sool kaliya uma istaagin markii runta loo eego Soomaali oo dhan baa wada istaagtay gaar ahaan dadka garabkayga joogad arkaysid intooda badan hal habeena kama aamusin dad kale adinka idin kamidna hal habeen kama aamusin inta waxay u taagnaayeen wanaag marka waxa laga rabaa qof walba oo arkaya maanta meesha la istaagan yahay in ilaahay loo mahad celiyo qofkii dollar ku darsadayna in loo mahad celiyo wajazaakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan u yeerayaa insha Allah isna kelmadii doona Abdulqaadir Yaasiin waxaan u maleynayaa introduction ma baana مسكين برا عبد القادر ياسين مسوا تقنان
سودو عبد القادر ياسين وعنو ملينا وحن dhihi karnaa the fathers and the founders of Boston marka سودو عبد القادر ما سوين horta habeen wanaagsan aniga cabdiqaadir yaasiin ahaan arrintan caawa halkaan isugu nimid sidaan u arkaan raba inaan idiin sheego waqtigana waa yaryahay waxaa la siiyey only 2 minutes kuma hadli karo laakiin dhowr arrin baan rabaa inaan taabto arrintan caawa aan isugu nimid oo ah qadiyadan caawa qaatuma macnaheeda waa ka duwan tahay waa mid aad iyo aad u qiimo weyn oo markaad dib u fiirisid taariikhda waa markii labaad ee ummadda Soomaaliyeed 60kii markii laga soo wareego oo gumaysigiina kala qaybiyay dadka u baahnaayeen unity-ga Soomaaliya ay beelamay tahay caawa 60 iyo waxa ka soo wareegatay dhowr sano 60 iyo dhowrka sano Soomaalidu ilaa hadda waxay ku jiraan struggle qadiyadan haddaan ka hadlayno qaatumo ma aha mid lagu madhigi karo gobolada hadda la wada sameeyay way ka duwan tahay waxay u taagan tahay symbol of hope waxay u taagan tahay symbol of unity waxay u taagan tahay symbol of hoos baa la iga wada sheegaya hadalkii oo dhan runtii marka I don't want inaan lightly u qaadano qadiyadan ay to qaatuma mar rabo identity-ga qaatuma inay noqoto mid sida hadda dadka ay uga dhigayaan ama ay magac u yeelayaan ama harti ama daarood waa qadiyad Soomaaliyeed weyn way ka weyn tahay qadiyad harti iyo qadiyad daaroodba waa arrin Soomaaliyeed teeda labaad dhibka maanta Soomaaliya soo kala gaaray carabkeena aan ka yareyno cadowga dhaxdeena aan ka abuureyno qaladaadka soo kala gaaray Soomaaliya dad Soomaaliyeed baa geystay waxaana loo baahan yahay inay dad Soomaaliyeed saxaan Sweden meesha adiga aad ka taagan tahay ma waxaad rabtaa qaladkii dadkii waday inaad daba socotid mase waxaad rabtaa inaad noqotid kuwii qaladka saxay qaatumo waxay u taagan tahay kuwii qaladka saxay ma aha in laga dhigo qaatumo inay daba socoto qadiyadii hore marka waxaan rabaa inaan idin sheego caawa wadankeena waxa guumeystay labada guumeysina waxay kala haayeen markii laga saaro Faransiiska waa Ingiriiska iyo Talyaaniga waxaan idin few minutes mid walba taariikhdiisa dalka aan u naqaano maanta Great Britain ama loo yaqaano England taariikhda markay ahayd qarnigii 10aad waxay ahaayeen 6 mandaqadood oo boqortooyo yaryar ah oo ka soo guuray dalka Jarmalka oo soo degay dhulka maanta loo yaqaano England shanta boqortooyo yaryar oo kala qaybsanaa boqortooyin waxa dib ku noqotay inay ku noolaadaan nabad iyadoo mar walba ku soo duulaya qabiil iswata oo dibadda uga yimid oo dadka loo yaqaano Scandinavianska taasaa dhalisay inay abuurtaan unity-ga ay finally ku yimaadeen loo yaqaano dalka England isla markaa England kaliya way ku adkaan weysay inay ku joogsadaan waayo dhinacna waxa ka xiga Faransiiska dhinacna waxa ka xiga Spain waxay bilaabeen taariikhda inay raadiyaan unity ee la yeeshaan wadankan loo yaqaano Scots oo hadda ay isku yihiin one wadan kun sano kadib ayagoo unity ah bay Soomaaliya qabsadeen ayagoo walaalo oo wata ay Soomaaliya qabsadeen waqtigay Soomaaliya imaanayeen Soomaalidu way kala daadsanaayeen si fiican dhegeysta hadalkayga Talyaaniga also waxay samaysteen unity-goodii 1870 ayagana sidoo kale way kala qaybsanaayeen 16 sano ka bacdina Soomaaliya ayay qabsadeen marka waxaad garan kartaan unity-ga qiimaha uu leeyahay waxa maanta Soomaaliya loo kala qaybiyay goboleysigaanaytu ma aha mid looga dan leeyahay inay Soomaaliya ay ku yeelato wanaag marka caawa waxaan rabaa inaan idin sheego celebration kan qaatumo waa unity-ga Soomaaliya waxaan Ilaahay ka baryayaa inaysan dabagelin identity-ga ay qaateen gobolada Soomaaliyeed oo la wada sameeyay oo federaalka oo based on qabiil noqotay waxaan rabaa inay noqoto mid based on Somali waxaan kala rabaa inaan idin sheego waxa jira maama la yiraahdo you can win the battle but lose the war
every Somali gobolada arkay sidoo dhan they win the battle but they lost the war. Qaatumo waxaan rabaa inay maamulkeeda ay ka fakarto leadershipka ay yeelanayso nooca uu yahay. Yeesan noqon dagaalkii rabshadii socday dadkii yaqaan sida loo dagaalamo markay nabadda timaado wax ma wadi karaan. Waa inaad doorataan dadka markay nabadda timaado wax dhisi kara. Marka waxaan rabaa leadershipka Qaatumo also inay ka leexato leadershipida ay qaateen gobolada haddii la yiraahdo. Qaatumo marka waxaad u taagantihiin symbol of Somali unity hore u socda waan idin daawanaynaa dad badan oo wanaagiina jecelna waa joogaan habeen wanaagsan. ما شاء الله آد بو مهتسن يهي عبد القادر ياسين iyo sida quruxda badan ee uu nooga sheekeeyay taariikhahaas wax ku qaadadka leh laakiin Cabd Alqaadir waxa uu sheegayaa hadda reer Qaatumo ogow hadda leadership iyo dawladnimada waa lagu xantaa dawlad dhisinayna waa lagu xantaa taas ogow waa la socdaa baan u maleynayaa Cabd Alqaadir aad buu mahadsan yahay ma aha rag qoryo kaliya uu sita marka xaqana waxba waa lagu yar xantaa xaqa dawladnimada iyo dhismaha dawladnimada iyo wadaniyada iyo xoogaa aad Cabd Alqaadir waa mahadsan yahay waa soconaynaa waxaan rabaa inaan u yeero nin runtii aad u qiimo badan oo anigu shakhsiyan aad u jeclahay waxaan u maleynayaa panelka hadda fadhiya waa odayga ugu weyn agteeda qiimo iyo qaaya ayuu ka leeyahay waana ruux runtii wax fiican looga daydo oo wali akhlaaqda iyo adaabta iyo ixtiraamka iyo ma sha Allah ragga meesha fadhiyo dhanba waa rag caaqila laakiin si gaar ah ayaan odayga anigu kulley uu igu weeyahay waa Maxamuud Yuusuf Gaafa soo dhow Maxamuud Yuusuf ما شاء الله وما تصدق يعني وهذا فانس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عبده ورسوله الكريم وحامضا الدونك تاريخ أيام كلا دحلا تاريخ ده وحال لقيها إنك سيسنجر إيش وحقراله haddana ooraah baa la isku gaarsiin jiray marka nimankan caawa meesha aan ugu dabaaldegayno anigu waxaan u soo jeedinayaa duco ilaahay inuu kor ka yeelo waa nasiib badan yihiin waana taariikh badan yihiin saddex jeer ayay qadiyadda Soomaaliya gumaysi kala dirireen in Cabdullaahi markii ninkii loo jiray Axmed Gurey ciidamadii dagaalka gale waxay 12,500 ayay ahaayeen 7,500 dhulbahanti ahaayeen marka waxa waaye ii sheeg waa taariikh sorry Axmed Gurey ninkii la oran jiray dagaalkii uu la galay Amxaarada oo ku kalifay inay dab shidan waayaan ciidamadii uu gutay waxay 12,500 7,500 dhulbahantay ahaayeen kow daraawiish 23 sano ingiriiska waxa la dirirayay dhulbahantay ahaayeen u diideen inuu saldhigto gumaysi oo dhan nooc kastoo ahaaba maantana ilaahay wuxuu keenay iyadoo fashil la taagan yahay oo in la kala googoo ay taagan tahay inay kacaan oo ay soo ceshadaan qadiyadoodii iyo Soomaalinimadoodii way ku mahadsan yihiin ilaahay khayr ha siiyo intaas waa taariikh waxaan kale uga dardaarmayaa oon u sheegayaa ii sheeg muxuu ahaa dadku waxay u baahan yihiin nolol u baahan yihiin in xabad la qaato sida Cabd Alqaadir uu sheegay ma aha nolol baa loo baahan yahay meeshaas ceelka ugu shidaalka badan ayaa ku yaala oo Soomaaliya ceelka labaad weeye marka laga soo reebo midka Ogaadeen ku yaalo oo hadda Etoobiyaanku ay qoteen ceelka labaad weeye oo ugu shidaalka badan leh warad intaas aniga cunug yaraan ahay gacanta lahay markii ceelasha ay qodayeen Ameerikaanku waa 80 sano magarat waxaan u soo jeedinayaa oo kula dardaarmayaa caawa soo hadli doona madaxweynihii inay ceelkaas
ay by hook and crook siday rabaan ha yeelaan inay la soo baxaan oo dadkan aakhira maan cunaynaa shidaalkan la sheegaya Soomaali ku jira no waa in go'aan la gaaraa waa in la soo saaraa waxa ku jira hantida ku jirta ilaahay barwaaqada oo Soomaali ka dhigay waa in muxuu ah adduunka meel 4 jeer wax laga goosan karo Soomaaliya ka jirta meel kale 4 jeer inta beer aad falatay wax kaaga soo baxaysa ma jirto Ethiopia markii ogaadeen laga soo jaro Kenya ay nafdi markii laga soo jaro 2 jeer ka badan wax ma goosan karaan annaga 4 jeer baan wax goosan karnaa baahi qudaara waxa loo keenay hadda Masar iyo markii waxaan sheegayaa dhulku biyo leeyahay dhulkooda ha beertaan petroolka la soo baxaan macdanta la soo baxaan looma baahna xamaraan ku xiraana xamar sugnina shaqays go'aan gaar salaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh cabdullaahi maday boqor cabdullaahi maday oo dhinacayga fadhiya oo insha Allah wixii tahniyad iyo hambalyeyn iyo inta uu ku darsan doonaba inoo guud mari doono insha Allah soo dhaw boqor بسم الله الرحمن الرحيم سمو والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين أما بعد حفلة دان كلن كذا سيدو هوري لوغو شيغي سيدو إيمانكو شيغي ومد حمد نق تاسينا كسعونينا يدو إلهي رالي كنقضو مد لبادنا وحانو مهندقايا جهدي إيو هوش وين أي جيشين gabdhaha soo qaban qaabiya xafladan wanaageeda iyo quruxdeeda iyo mid walba ilaahay ka abaal mariyo midda labaadna waxaan ku leeyahay Puntland iyo Khaatumo waxba ma kala aha waa Khaatumo waa Puntland Khaatumo weey laba walaala ama laba gobol ama laba deegaan oo derisa aan waxba u kala socnayn weey marka taasna waa ilaahay baa mahadiis weey waa siyaada inoo ku soo kordhay meesha mid ahaan jiray laba ilaahay inoo ka dhigay waxaan bogaadinayaa dadkii jamaahiirtii iyo dadkii soo halgamay oo maanta wanaagoodii aan maanta aan u dabaaldegayno intii ku dhimatayna ilaahay janno iyo naxariis ha siiyo taariikh bayna meel ka galayaan waxba aan hadal ku badin maayo aniga Soomaalina ha noolaato maamulka cusub oo soo kordhay iyo Puntlandna kulligood kor alaaqiya salaamu calaykum warahmatullahi ما شاء الله هذا الير أو مرتب بدن حنبارسن آديات بدمات سنتهاي مدى سيدات وقت كانوا إلى لسي أرن مهم أنا أتكلم كده واجسي واسيس عننا إن شاء الله وحربا إن أنت عن نقفك كلا ويرين كحجة هل كان أن أجمع هذينه على هدي آذن مهدنق بحين أو ضدك بني آدم كأه آذن مهدنق وعلن إلهينا مهدنق معلست هاي مركا دولة الفدرال كالصوماليا تدال في عن يوحتر حقله أي كجيستي برنامج كان يقرشانه ما أنت عن ماشي وفرنه مركا آدي آدبان وهم هذا علنا دولة الفدرال كالصوماليا وايه أوكي هذا نوع عنكسو رجينا يا أدر نجاي أو إسقنا كلمة دي إن شاء الله نوسو كوبي دونا سوري هذا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأصحابه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد ورتا إلهي وين أبا مهد كوباد له مهد الله بعدنا وحا إسكاله دتك حفلة دانسو دياريي وكسو تشيدي مدو وحاكلو النعاوس كوغون نمد سيدي رقي يهرية بأي شيغان maxaan ku iraahdaa xafladda ku saabsan miraculous victory ama guusha cajiibka leh ee ay gaartay state of Khaatumo Soomaaliya arrintaas horta waxay ku dhalatay shacabkii oo horta 30 sano dhimbil daba lagu dhajiyay intaasuna ay socotay arrin ah wargacalka u soo jeesa gunaanad sheegini taas
waxay dhashay marka oo sababtay ninkii la dhihi jiray Hu Shumin ee Shiinada ka dhigay absolute of China China istaageedii ama horumarkeedii ninkii mataqaana abaabulay ama ku waqtigiis ku lumiyay wuxuu yiri mawtson miyu waa iska marka wuxuu yiri otomikada leedin sheegaya waa waxa shacabku rabo way otomikada leedin sheegaya sidaas taadeed waxa weeye shacabkii markii dhibaato taabatay oo dhimbishaas dabka u taabatay ayaa waxa kacdoon baa dhashay taas ku dheeraan maayo raggii iga horeeyay ayaa sheegay laakiin waxaan jecelahay sababta guushu ku timid inay ahayd wax walba shuruud bay leeyihiin iyo arkaan sida salaadoo kale inay shuruud u dhameystirnay oo laga fariistay oo loo dhameystiray shuruudii guusha lagu gaari lahaa shuruudaasna waxa ka mid ahaa dadku wixii ay rabeen waxa ka mid ahaa midnimadii shacab weynuhu u kacay waxa ka mid ahaa maskaxdii caafimaad qabto fiyoobayd oo garaadada iyo madaxdii saraakiisha iyo ragga hadda dawladda haya iyo baarlamaankii intaasoo dhan ay ku midoobeen waxa kaloo intaas dheerayd fiiri waxa ka maqnaa meesha wax kasta wixii xanibaad ah oo guushaas ka hor imaan lahaa oo maxaa ka mid ah sida ninkii yiri oo kale mama goolo geedka cabdiyow milic ku yaalaayeen ninkii mira yaraadaana waa maxamed awsaase arintaas marka meesha ilaahay uu ka ma jirin macanihi العاقل يفهم waxaan ula jeedo marka Soomaaliyo dhan waxa la wixii jecel midnimada Soomaaliya arinta tan aad iyo aad bay u daneynayeen waxba hadalka ayaan ku dheeraan markii ugu dambeysayna mar labaad waqti calankii shanta gees lahaa iyo tii maxaan ku iraahday Khartoum State aeroboortka xamar isagoo maxaan ku iraahday madaxweynihii state-ka usaas oo lulminahayo oo ma aragtay waa tii uu ka soo degay arintaas marka maxay dhashay waxay dhashay isku darkii waqooyi iyo koonfur markay isku darmahayeen iyo maantay oo mar labaad boorka laga jafay oo ay isku soo darmeen sababtoo ah intii u dhaxaysay waqtigii la isku daray iyo waqtigan hadda intii u dhaxaysay boor baa fuulay midnimadii boorkaas baa laga jafay alxamdulillaah rabbil caalamiin ciidamadii ka halgamay ina way mahadsan yihiin waxaa jira marka aad hawl fulinaysid مثلا ciidan oo kale waxaad leedahay meeshan ma qabsan karaa haa haddaan qabsado ma xagsan karaa haa haddii aan xagsado maamul ma u samayn karaa haa hayaa garab igu siinaya waxa la wixii samas jacayl ah oo midnada Soomaaliya jacayl baa garab igu siinaya wax walbana midda Ilaahay bay ku xiran yihiin Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa guushaas maanta la gaaray inaanu ku waarno midnimadaasuna aysan naga biiqbiiqin waxa la wixii isku dhaga adkaynaya oo aanu la hadalnay oo 10 jeer la hadlay oo hadalku waa wargacalka u soo jeeso ha gunaanad sheegin dibnahaas waxaad marin lahayd daa'im baa qoraya maxaa gaalka laga daawana diiday nabigeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan u yeero waxaan nala fadhiyaa caawa xildhibaan ex xildhibaan oo runtii hadda dadkii Soomaaliya u soo shaqeeyay hadda ahaa waliba anu waxaan ku xasuustaa xildhibaan Sandere in uu mar ay jirtay oo halis galay cajiib ahayd moogtay oo halka ka daawanaynay hodeel uu ku jiray oo qarax ka dhacay yaa waxa wali image-kiisi iyo hor muuqda Sandere oo jaranjaro ku tagay dabaqa shanaad iyo maaqa waxay ahayd marka fulaynimo ma aha
laakiin waa nin qarankiisa u shaqaynayo ahaa oo dad inkaar qaba oo ummadda ilaahay harsiimo u diiday ka badbaaday marka waxaan rabaa hadda inaan u yeero xildhibaan cabdiqaadir maxamed sandheere bismillaah habeen wanaagsan waxaa sharaf ii ah aadna aan ugu faraxsanahay sharaf aan la soo koobi karin iyo farxad aan la soo koobi karin inaan ka soo qayb galo xafladdan quruxda badan oo lagu taageerahayo aqoonsiga Khaatuma State of Somalia. Khaatuma State of Somalia waxaa lagu dhisay xeer la yiraahdo xeer number 4 oo la sameeyay August 1st 2023 xeer number 4 haddaad aragtid madaxda Khaatuma oo ka hadlaysa waa xeerkii lagu dhisay ayagu ay dhisteen markii dambana markii la yimid Muqdisho maxaa la yiraahdaa dawladda federaalkuna saxiixday xeer number 4 wuxuu noqday xeer gala taariikhda Soomaaliya oo lagu guuleystay xeer number 4 waxay dhashay maanta meesha aan joogno iyo meesha la marahayo waxaa dhashay xeerkaas oo ayagu reer Khaatuma samaysteen ayaga xeerka soo samaystay ayaga u la yimid dawladda federaalka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ugu horeyn isimada garaadyada ay ugu horeeyo garaad jaamac garaad cali oo garaadka guud ah oo ah niman si fiican u aqaano ogahayna ilaa 22,000 markii Khaatumo maxaa la yiraahdaa odayaasheedii iyo isimadeedu ay yimaadeen xamar aan ogeyn wixii uu ka soo maray ayadoo dawladda federaalka iyo maamulo kale intuba ay gacan bidixaynayaan wuxuu soo maray shaqo badan asaga iyo cali khaliif galeerba weligay ma iloobayo 22,000 iyo magaalada xamar wixii joogay baana joogay waxaan rabaa saade cali ayadana waxay ahayd wal saade cali la xasuusiyay saade cali iyo cali khaliif kan hadda sheegay labaduba waxay ahaayeen baarlamaankii aan ku jiray bay ka mid ahaayeen waliba saada waxay nala joogtay allah u naxariistay ayadoo accident baabuur samaysay oo wajigeedu nabarra ku yaaleen gacantuna ay jaban tahay bay fadhiday ayadoo ka shaqeynaysa waxa maanta guusha aad joogtaan iyo Khaatuma cali khaliifna wuxuu ahaa allah u naxariistay wuxuu ahaa budag gooni u tuman oo xamar gilgilay hataa marba wuxuu u orday speakerka baarlamaanka oo uu dabcay inuu daba maro 4.5k waxa Soomaalidu sheegto nin adag oo odaya oo anigu dadka aan xurmeeyo ka mid ah allah u naxariisto Cabdiwali Gaas prime minister kii hore baa maalin dhawood wuxuu yiri asagoo jooga Nairobi xafladan oo kale wuxuu yiri waxaan jeclaan lahaa maanta inay nool yihiin cali khaliif saade cali maxaa la yiraahdaa jaamac kadiye gabayaagi iyo oday kale oo garaadu sheegay magaciisa aan ilooba ka xumahay waxaan ku raacsanahay afgaab garaad afgaab insha Allah waa mahadsan waxaan marna la iloobi karin madaxweynaha maamulka Cabdulqaadir hadda odaygaa sheegay adeer nageeyaa sheegay oo iga horboobay calankii uu kala soo degtay magaalada xamar waxay ahayd taariikh adeer baa sheegay waxba uga noqon maayo waxay ahayd tii 60kii oo soo noqotay dayuuradda korkeeda markuu calanka uu saas lahaa dadkii waaweynaa oo waagaas joogay ama taariikhda la socday nin qof Soomaalinimo ku jirto aan jariica ku jajabin ma leh dayuuradda markuu ka soo degayay asagoo wada calankii Soomaalida waxay ahayd laba adeer wuxuu ugu yeeray marlabaadkii ay dhalatay Soomaaliya oo kale haddaba waxaan rabaa inaan waxaan la iiga hormarin aan sheego qofka arka calanka Khaatumo qofkii arkaa oo aan daraawiish xasuusani waa qof ama indhala ama isindhatiraya daraawiish oo ah dhulka Khaatumo ku dirirtay haddii taariikh Soomaali leedahay lagu faani karo oo cunuga aad dhashay aad caawa istiraadi Soomaalinimada bar ha faano ha weynaado taariikh la mida taariikh daraawiishta ma jirto waxaana sheegay gaaladii ruuxoodii baa sheegay
qofkii akhriyey buuggii Mad Mullah of Soomaaliya oo weliba 3 goor 4 goor oo kale dib loo cusboonaysiiyey qofkii arkay buugta tirada badneed oo Soomaalidu ka qortay Daraawiish iyo Sayid Maxamed qofkii arkay gabayadii sayidka oo uusan aamusi jirinin akhriyey wuxuu ogaanayaa in khaatumo marka la yiraahdo waxa ay ku saxsanaayeen in calankooda ay ku dhigaan faraskii darwiishka asooda kod aywa soo koob la yiri marka waa carcaranayaa soo gabagabeeya okay hal waxa ku soo gabagabeynaya intaana gabagabeyn waxa iiga horeeyay adeer baa iiga horeeyay khaatuma aniga waxa ii taan idin sheegaya khaatuma waxa weeye waa midnimada Soomaaliya ama diid ama doon waxay u taagan tahay Soomaali midnimadii aan ka quusanay midnimadii aan isniri ma imaan doonto quusta taagnayd waxaa soo celisay khaatumo wiilasha khaatumo dhagaxa tuurahayay waxay u tuurahayeen wiilashayada oo dhan bay dhagaxa su tuurahayeen waana u mahadnaqaynaa waxaan rabaa markii inaan gabagabeeyo soo gabagabeey baa la yiri anigu nin reer mudug aan ahay maama reer mudug waxaa jirta waxaa la yiri oday baa wuxuu kor yimid balli weyn balliga ama haraa meel biyo galaan weeye oo ayaan hore intuu maray wuxuu arkay iyadoo angagan maalinka dambe wuxuu soo maray iyadoo buuxda inta roob da'ay marka haradii buu la hadlayaa balligii buu kor istaagay wuxuu yiri balli hebelow magaciisa ma xasuustee xilahay dalaaqan inaan ilaahay hortiis wax dambe kuugu harinay biyaha cisho wuxuu ogaa inuu yahay balli biyaha cuna waxaan leeyahay reer khaatumow midnimada maanta haysataan iyo meesha aad maraysaan anigu kulli intaan noolaa ma arag reer khaatumow saasay cishada waana idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala waaye waxaan rabaa inaan u yeero isagana nin odaya oo maasha Allah ah oo reer Boston ex Boston oo dadkuna dee wada yaqaanaan introduction uma baana waa nin dalka u soo shaqeeyay Soomaaliya aad u soo shaqeeyay halkanna runtii bulshada aad iyo aad meel fiican oo mudan kaga jira marka waxaan soo dhaweynaynaa insha Allah generaal محمد أحمد شالة سودو جنرال بسم الله الرحمن الرحيم دمان ددوينها هالكم فدية رجع دمر با وسلاميه مهد الله عليه عاون نسور تجليي إنه هالكم نسوون ما إنه كده بالدقنه وحا مهد الله بعده قبلها هالكم نو دياري ماشان شرفت بدن وقروح بدن نو دياري وجهد جفرها بدن جليي وقت ما تشيره oo saacaduhu waxaa la isu qabtay 2 daqiiqo wixii aan ku hadli lahaana horaaba loo yiri hal qodob baan rabaa inaan ku noqdo waxa weeye daraawiish maxay u dagaalamayeen sayid maxamed cabdulla xasan markuu berbere ka soo degay sayid maxamed cabdulla xasan markuu berbere ka soo degay oo cashuurta la weydiiyey oo uu ingiriiskii ku yiri anigu dalkayga cashuur ka bixin maayo markuu soo galay oo hawdkii soo galay Soomaali meelo badan buu tagay oo wuu waayay wax garab istaaga daraawiishtii baa garab istaagtay markuu hoy u noqotay mabdu uu watayna waxay ahayd kow in dalka ummadda la gaalaynin iyo inaan la gumaysanin oo gaal uusan gumaysan iyo in aan la kala qaybinin oo mid noqdo saddexdaa qodob bay ahayd saddexdii qodobba wuxuu ka helay daraawiish buu ka helay
halkaa wuxuu kala dagaalamayay ingiriis, koonfur wuxuu kala dagaalamayay talyaani, galbeed wuxuu kala dagaalamayay etoobiya kala dagaalamayay. waxaa dhacday markii intuba ay maare u waayeen in ay noqotay meeshii koowaad ee loo adeegsado diyaarado Afrika, diyaarado la keeno loo adeegsado oo lagu baabi'iyo, diyaarado lagu baabi'iyo ummadii iyo halgankeedii, halgankaasoo ahaa inaanan ummadda la gaalaynin, inaanan dadka la qaybinin iyo inaanan la gumaysan. waxaa ahayd diyaaradaha maalintii lagu garaacay bishii saddexaad 7 baan u maleeyaa 1922 halkaasaa lagu baabi'iyey halgankii. markii laga adkaaday Turkigu maanta hadda dagaalkii koowaad adduunka lagu jabiyey, muslimka waatay fidiyeen oo meel walba geeyeen. markii la gumaystay oo laga adkaaday waxaa lagu xujeeyey 100 sano inayan masaajido dhisin, 100 sano inayan dumarka xijaab qaadan, diinta in laga baabi'iyo laga wareejiyo ayaa lagu heshiiyey. 100kii sano waxay ku eg tahay bishan December ee soo socota ee 2023 ayay ku eg tahay. khaatuma 100kii sano ay gaadhay waagii la baabi'iyey, hadday soo kacday iyaduna. daraawiishtii maalintaa la baabi'iyey 22kii sanadkii 1922 100kii sanaa u dhammaaday, marka waa soo noqotay, way soo kacday, mana laga yaabo inay dib u noqoto. mabda'iina waa ay wadaano waa kan hadda laga sheekeeyo, calankii bay ka dejiyeen muxuu ahaa bahalka. marka waa mahad ilaahay, mana filaya inay dib u noqon doonto. waxaa sharaf mudan oo ammaan mudan oo mahadnaq mudan dowladda federaalka ah kaalintii iyo qaybtii ay ka qaadatay midnimada ummadda Soomaaliyeed soo dhaweynteeda. cabdiqaadir yaasiin hadalkiisii waxaa ku jiray waxaa islaynaya waagaa ingiriis iyo talyaani iyo etoobiyaan bay ahaayeen iyo Soomaali kollay la jirtay. maanta waa ummaddii Soomaaliyeed baa islaynaya oo isdilaya. taasna aynu u duceyno in ummadda ilaahay xaqa tuso, waxa dulmiga wadana ilaahay dulmiga ka qabto, waxa inta dulmana dulmiga ka saaro meel kasta ay joogto. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aan sii soconno, waxaan rabaa inaan u yeero oday maasha allah aan isleeyahay shakhsi ka wadaniyeysan anu kuley maan arag. waa nin aad iyo aad u qiimo badan, Soomaalida jecel, Soomaalinimada ku dhinta. waana nin anu aan si gaar ula sheekaysto runtii, wax badanna aan ka kororsado. adeer jaamac gulwade, soo dhow adeer, soo dhow jaamac gulwade. waxaan u malaynayaa Boston la isbarin maayo, soo dhow adeer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما إني قبسيس والله أنا إني قبسيسين بالله يتالله. Soomaaliya ha noolaato. Soomaaliya ha noolaato. Soomaaliya ha israacdo. maya ma bisla Soomaaliya ha noolaato. Soomaaliya ha israacdo. waa maatantihiin. horta ma hadli karo farxad darteed. rag badan oo aanu saaxiibo nahay ayaan waxaan isku sheegnay war Soomaali waa kala gooy ka dhaa iyo ma kala gooy ka dhaho. waxaan xamdi u noqoyaa caawa
ilaahay suurto geliyey in soomaaliya kala go-eedii inay suurto geli weyday baan ilaahay xamdi u naqayaa arrintaas kuma imaanin faataxo kuma imaanin jacayl waxay ku timid halgan midaysan oo dhiig ku daatay halgan shacbi uu kacay oo wixii ka maqnaa isagu soo ceshaday ayay ku timid yaa waxa weeye maxaa markaan looga baahan yahay iyaga qolada halganka ku jidha oo furuntada ku jidha maxaa looga baahan yahay innagase maxaana looga baahan yahay innaga waxaana looga baahan yahay geed markaad beeraysid biyuu ku baxaa geed marka la beerayo biyuu ku baxaa waxa weeye dad qofka halkaa jooga oo khaatuma halkaa jooga waxay u baahan yihiin kuwii barakacay kuwa dhaawaca ah kuwa furuntada ku jira kuwa magaciisa ceelumaqadna magaciisa uma qodo jeebkiina haddaydnaan ka quudinin halgankuma soconayo ma siisan shacabka nooca intaasoo kale ma soconayo halganka haddaan jeebkiina haddaydnaan ka bixin haddaydnaan kan kuwa qaxootiga aydnaan lacag u dirinin kuwa barakacay aydnaan u dirin kan dhaawaca aydnaan u dirin kan furuntada ku jira aydnaan u dirinin runta aynu isu sheegno wax maaragtay keliya uma beera uma baahna webina uma qodna waxa jeebkaaga ku jira ayaa halganku ku xoreeyay example baan idin soo qabanaya 1900 iyo markii 1959 markii 54 Cabdullaahi markuu uu tagayay New York uu tagayay waxaa dhacday ereyga dhacay wuxuu ahaa gabdhaha Soomaaliyeed waxay qaadan jireen 1 shilin bay qaadan jireen oo masruuf nus shilin leegaday siin jireen nusna caruurteedii ninkeeda ayay ku masruuf jireen haddaydan taasoo kale aydan sameeynin gabdhahiina reer khaatuma ama gabdhihiina caaw quruxda badan oo halka jooga haddaydan taas sameeynin wallahi halganka inuu soo soconayo runta in sheegayay marka ku talagala inaad dadkaas caawinaad bay u baahan yihiin shacab uma baahna muusiko uma baahna waxay u baahan yihiin gacan qabad bay u baahan yihiin dagaalkuna waa dhaqaale marka waxaan ku soo guuleeyay khaatuma ha guuleysato Soomaaliya ha guuleysato waxaan ku soo gunaanadaya qabiil intaynu calamo aynu kala qoqobanahay wallahi oo billahi oo tallaahi midnimadii ummadda Soomaaliya haddaan la soo celinin inaan weligan madaxa la kacaynin mar Kenya na garaacdo mar Ethiopia ku garaacdo mar cid kale ku garaacdo ayay noqonaysaa Soomaaliya ha noolaato intaan u galin keynote speaker-ka horta runtii markaan caawa aan panelka arkay dee rag unbaa halka fadhiya gabdhana waa buuxaan maasha allah wada cod kara hadli kara loona baahan yahay odhaahdooda in la dhagaysto waxaa qoran oo ku jirta programka Marian Gas kuma arag badanaa halkan ay soo fadhiisan jirtay waxaan moodayay inaysan caawa joogin laakiin waxaa la ii sheegay inay xaggaa fadhido marka Marian Gas waa soo dhaweynaynaa soo dhawo Marian Gas kelmadaadii jeedso production idin kaga baana waa qof aad taqaanaan oo magaaladan runtii qiimo weyn ku leh Marian soo dhawo anaga waqtiga ka faa'iideysanayna aad iyo aad baa u mahadsan gudoomiyaha haweenka shacabkii mashxarada ma ay siisaan habeen wanaagsan waa idin salaamayaa dhammaantiin waxaan arkayaa aad dad u qurux badan rag iyo dumarba ka soo qayb galay xafladan qaayaha iyo qiimaha leh marka waxaan leenahay guul khaatumo iyo waxaa cajiib ah February 8 markuu kacaankii dhacay maaragtay shacabkii dhagax ku isticmaaleen dadkii ku tuureen dawladda markaas joogtayna ay ugu jawaabtay xabado iyo dil iyo sida gaaban oo sahalka ah 8 bilood ka bacdi in la soo afjaray August 25 marka waxaan idin sheegi lahaa
أغسطس 25 كلية ما guulaysanin qaatumo maxaa dhacay waxa dhan waxay ahaayeen wax isku xiran siyaasadda Soomaalida oo dhan ilaa 25 August waxaa ku xirnaa in dastuurka la dhameystiro inay Soomaaliland soo noqoto taas waa lagu guulaystay wax hadda ma taqaan hortaagan ma laha waxaa kaloo la ogaaday in dadkan la leeyahay shabaab meeshay ka yimaadeen iyo waxay yihiin in la ogaaday waxaasoo dhan bay kashiftay 25 August sidaas daraaddeed Soomaali meel ay joogtaba xafladan oo kale waa inay sameeyaan ayagoo xusi doona xasuusan doona August 25 waxaan kaloo rabaa annagu dad waxaan nahay caatifad badan leh Soomaalidu laakiinse guusha ma ku imaanin in mataqaanaa la siiyo qaatumo la yiraahdo state baa tihiin waxay ku timid xinjiro iyo dhalinyaro ku dhimatay meesha tan labaadna maxaanu ka baranay dagaalkan maxaanse ay nagu reebaysaa waa laba qodob aad u muhiim ah waa mide waxaan ka baranaynaa in xaqdarrada ay guulaysanin qardarrada inayan guulaysan tan labaadna aan nagu reebayso waxa waaye inaan la hilmaamin hadhow aan mataqaana si sahal ah loo yiraahdo wixii waa dhaceen carruurta halkaan aan ku dhalnay iyo kuwa dibadaha jooga Soomaaliya oo annaga jiilkii naga dambeeya ah sheeko ma rabaan waxay rabaan itus oo itaabsii magarata marka sidaas daraaddeed waxaan aniga codsanayaa aan ka codsanayaa Soomaalida oo dhan in taariikhda la qoro sida carruurta u akhrisato xagee baan joognay xagee baan ka nimid maxaa dhacay waxaasoo dhan in carruurta la baro waayo hooyooyinka marka gabdhaha walaalahay ah waxaan idiin sheegayaa ragga sidoodaba dumarka ma soo mataqaanaa saaraan calanka buluuga ah aan hadda aanu haysano gabdho badan oo Soomaaliya oo celebrity ah oo lagu xiray xabiska marka calanka la doonayay ayagoo xaamilo ah ku dhalay xabiska gabadhii ku dhalatay xabiska waagaas waxay ahayd August ayadan August loo bixiyay waa Timiro Cukaash ninkii garanaya xaawataaka waa aragteen fallaarta ka taagan gabar Soomaaliya ahayd laakiin badanaaba waxaan jecelnahay inaan ka sheekeyno muruqyada ragga iyo inay ragga geesiyaal yihiin waa idin garab taagannahay annagaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وريقة سعبكي مشحرة بقرة بلاوية.